ma maqashay kitaabkii qur'aanka ahaa ee lagu liibaanay warkiisii. xaqiiqdii kitaabka qur'aanka waa mid lagu liibaano, aqrintiisa iyo ku camalfalkiisu waa mid lagu liibaano. balse waxaa jirto taariikh ama sheeko cajiib ah oo kitaabka qur'aanka oo lagu liibaanay ah. nin aanan aqrinin misane aanan waxyaabo kaleeto aanan samayn, balse ku liibaanay kitaabka qur'aanka. bal qisadan cajiibka ee ninkii taajirka ahaa ila dhegeyso. nin taajira baa jiray maalin maalmaha ka mid ah baa wuxuu go'aansaday in uu hadiyad bixiyo. hadiyadaasini uu siiyo dadka asiga ugu dhow. ninka taajirka ma uusan lahayn caruur ama ehel asiga ka dambeeya. qani ilaahay hanti siiye ayuu ahaa. ila dhegeyso sheekada, ilana dhamayso. channelkane like-ta inoo saar. haddaa followna soo dhihi kartidna ina soo dheh, waxba kaama dhibayso. ilaahay kuma daraadee ninkii taajirkaay baa wuxuu go'aansaday inuu guddoonsiiyo dadka asiga ugu dhow hadiyad. hadiyadaasi oo ahayd baqshado oo lacag ku guray. shaqaalihiisii buu iskugu yeeray. sidaan sheegnay, ehel ma uusan lahayn ama ilmo ama caruur ama qof ma uusan dunida ma uusan u joogin. badanaa dad badan oo sidaa ah dunida way jiraan. ilaahay kuma daraadee baqshado ayuu lacag ku soo guray. halka ayuu soo saaray. wuxuu iskugu yeeray shaqaalihiisii dhammaantood. qasrigiisa ayay iskugu imaadeen. ninkii waardiyaha u ahaa, kii cunada u karinayay, iyo kii alaabta iyo waxaa oo dhan nadaafadiisa iyo wixiisa qaabilsanaa. baqshadihii waa la qadeeyey. cunto buu iskugu yeeray. casuumaad maasha allah oo midii ugu dambeysay ahayd. ilaahay kuma daraadee wuxuu yidhi, maanta waxaan rabaa inaan hadiyada idin guddoonsiiyo. baqshado lacago ay ka buuxaan ayuu miiska soo safay iyo kitaab qur'aan ah ayuu soo saaray. ilaahay kuma daraadee markii uu soo saaray buu wuxuu yidhi, nin waliba ha qaato. ninkii kitaabka qaataa wax kale ma qaadan karo. ninkii baqshadahaas meesha yaalla qaatan wuu qaadan karaa. wuxuu ku bilaabay ninkii cunno karintii u qaabilsanaa. markaaba wuxuu ku yidhi, baqshadaha midaa doonto ka qaado. waxaana hubaala baqshadaasi in ay ku baahi tiri doonto baahi kasta oo maanta ku hayso. haddaad baqshadahaas mid ka mid a aad qaadatid, baahi kasta oo maanta ku hayso way ku day doontaa. wax walibo aad u baahan tahay dunida maanta, baqshadaas hantida ku jirto, baqshadahaas mid ka mid a ku jirto, dhammaantood way ku wada jiraan, way ka wada siman yihiin. midaad doonto haddaa qaadid, baahi walba ku hayso ama wax waliba oo maanta culeys oo ku haysto way ku dayn doonaan. waana xaqiiq. kitaabka qur-aanka isagana waa qaadan kartaa oo baqshadaha waa ka tegi kartaa. ninkii jeefka ahaa ama cunno kariyihiisa ahaa wuxuu qaatay baqshadihii baqshad ka mid ah. intuusan qaadanna koor wuxuu yidhi, mudanahaygiyow, booskaygiyow, amiirkaygiyow, kitaabka qur-aanka waan qaadan lahaa, balse waxaan u diiday inaan qaato. waxaa igu badan howsha gurigaaga aan ka qabto, martida faraha badan leh ee kuu timaado, iyo fikirka aan ka fikira si aan u kari lahaa cunno adiga ku qanciso. aawadeed ayaanan u qaadanaynin kitaabka qur'aanka ah. waxaana diidayaa inaan ka mashquulo oo aan aqri waayo, rabbina berito oo ii qabto. marka sidaa darteed ayaa kitaabka qur-aanka uga tagayaa. arrimo adduunyo fara badanna way i haystaan inaan iska xaliyana waan rabaa. sidaasaana baqshada u qaadanaya. markaaba wuxuu ku xejiyey midkii asiga cleanerkiisa ahaa ee waxyaabaha u meyri jiray, u dhaqi jiray. adigana haye markaagi waa qaado kitaabka ama baqshada
wuxuu yiri sidaan gurigaaga nadaafadiisa u dhowraayo kaaweynta dharkaaga ama feereynta dharkaaga aan ugu dadaalayo shaqada faraha badan leh ee gurigaaga aan ka qabto aawadeed waxaan diidayaa inaan kitaabka qur-aanka ah aan ka mashquulo berritana rabbi oo i weydiiyo sidaa darteed ayaan kitaabka qur-aanka uga tagayaaho fursad aan ku aqriyo uma hayo halka baqshadana aan u qaadanayo arrimo fara badan oo igu taagan ayaa jiro inaan iska xalliyana waan rabaa adduunyo iyo lacagna waan iskaga xalli karaa sidaad sheegtane baahi walbo maanta dhehayso kitaabka oo maxaa la yidhaha baqshada way nagu daynaysaa sidaa ayaan u qaadanaya wuxuu u yimid ninkii gaydhkiisa ahaa ama ilaaliyihiisii ahaa wuxuu yidhi qaado waa markaagii markaabuu soo boodee wuxuu yidhi amiirkaygiiyow booskaygiiyow sidaan adiga kuu waardiyeeyo oo indhaha aan kugu haayo oo 24 saac aan kuu daba taaganahay ee aan wax xun kaaga ilaalinayo waxaan diidayaa haddaan kitaabka qaato inaan fursad aan ku aqriyo ilan ma haaye inaan inta qaado meel aan dhigo rabbi berrito ii qabto sidaa darteed ayaan uga tagayaa baqshadana waxaan u qaadanayaa arrimo fara badan oo i haysta adduunyo culayskeeda ma dhammaado i haysto inaan iskaga xalliyo ayaan u qaadanaya lacagtii baqshadihii ayay wada qaateen halka meesha uu jiray cunug yar oo aad iyo aad u yar misana qasriga yimaada waxyaabo yaryaroo macaan oo hooyadii ay soo samayso ayuu soo qaadaa dadka martida ee qasriga yimaada ayuu ka iibiyaa si uu wax uga helo kadibna wixii uu meeshaas ka helo asiga iyo hooyadii ay u biishaan markaabuu u yeero wuxuu yidhi cunugii yaraa amiirkii wuxuu yidhi ninkii taajirka ah wuxuu yidhi haye yariisow waan ogahay adige maanta gaajadii way ku daysayeen iska qaada baqshadaha unbaad qaadan lahayd mid ka mid ahe qaado baqshadaha wuu diida laa boqorow maya uu yidhi taajirow may ma qaadanayo ee kitaabka qur-aanka ah ayaan qaadanaya because of hooyadaydi waxay ii sheegtay qaninimo oo dhan inay kitaabka qur-aanka ay tahay tujaarnimo kitaabka qur-aanka ah ka weyn inaysan dunida jirin hooyadii ayaa ii sheegtay maalin walbana waxay iga ballan qaadaa hadday wax hesho oo ilaahay oo wax siiyo ay waxa aan quturyoonkeena ka badan hadday hesho inay kitaab iisoo xurmayn doonto kitaab qur-aan ah in ay iisoo xurmayn doonto maadaama aan lacag kitaab ay hooyadii iigu soo godo ama iigu soo xurmaysa aysan haynin misena mar walbana ay ii ballan qaadi jirtay maanta haddaan helay asigoo bilaasha maxaan ku diidayaa inaan qaato because of kitaabka qur-aanka waalidkay wuxuu i baray ama hooyaday waxay i bartay inay adduun iyo aakhiro asiga lagu liibaano adduun iyo aakhirane tijaarnimada dunida mid dhamaatay inay tahay laakiin tijaarnimada aakhiro la taajiro inaysan ahayn mid dhamaato anigoo ku taajiri kara dunida dhexdeeda iyo aakhiro nolosha dambayso heestane waddadii aan u mari lahaa inuu kitaabkaa u yahay inaan maanta qaato maxaan ku diidayaa sidaa ayaan kitaabka u qaadanaya waana ku mahadsan tahay culayskii faraha badnaa ee hooyaday saarnay ee mar walba ballantii iga qaadi jirto oofinteeduna ay adkeen maadaama inta asigoo bilaasha aan helay asigaan qaadanaya cunugii kitaabkii ayuu sida ku qaatay kitaabka markuu qaatay 2 baqshadood ayaa ku dhex jirta kitaabka mid waa baqshaduhu meesha yaallo dhan hantida ku jirta same ayay ahayd intii baqshadood ee meesha taallay hanti u dhiganta 3 jibaarkeed ayaa baqshada kuwaad ku jirta baqshada labaad waxaa ku jirtay warqad ay ku qoran tahay markaan geeriyooda kadib waxa hanti aan leeyahay adiga iskale maxaa ku qoran bal dhegeyso markaan geeriyooda kadib waxa hanti aan leeyahay adiga iskale bal fiiri cunugaa yar halka ayuu ku taajiray adduunyo ku helay ilaahay agtiisana karaamo uga helay marka halkaas allahu akbar sheeko kaloo xigtane isla socod wanaagsan oo isla kitaabka qur-aanka ah